kormeerkan uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Basma Camar Shakeeti ayaa waxay kormeer ku tageen mid ka mid ah garoomada kubadda cagta ee degmada Yakshiid gaar ahaan xaafadda Jungal waxayna u kurgalayeen nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada. mas-uuliyiintan maamulka gobolka Banaadir ayaa inta ay ku sugnaayeen garoonka kubadda cagta waxay dhalinyarada kubadda ciyaaraysa iyo bulshada u soo daawasho tagtay ku dhiirigelinayeen in ay xoojiyaan horumarinta isdhexgalka bulshada iyo nabadda. gudoomiyaha degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Geedo ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ay aad u wanaagsan tahay wada shaqaynta ka dhaxaysa maamulka degmada iyo bulshada. waxaan rabaa markii inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtay gobolka Banaadir aan u sheegno barbaganka la gelinayo suuqa inaysan wax ka jiraysan jirin. waa idinku soo dhaweynaynaa, waa mahadsantihiin. waxaan jeclaan lahayn inaan meelo kale idin geyno oo saan oo kale caartu uga socoto waqtigoo yar awgiis waan idinka mahad celinaynaa. ku soo dhawaada degmada Yakshiid. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in la xiray garoomada ay dhalinyarada isugu yimaadaan ee kubadda cagta. waxaan joognaa xaafadda Jungal gaar ahaan meel ka mid ah goobaha banooniga lagu dheelo oo ay horay sida la sheegay oo suuqa la soo geliyay in dadkii meeshan lahaa taleefanka lagula soo hadlay oo shacabka loo diiday inay halkan ku cayaaraan kubaddii. waxaan halkan caawa u nimid inaan aragno inaysan warkaas waxba ka jirin. shacabkii banoonigooda dheelaya dadkii degmadan deganaa xaafadda Jungal ee degmada Yakshiid. waxaan rabaa marka inaan degmooyinka iyo guud ahaan shacabka magaaladan degan inaan u sheegno inaysan jirin warkii maaragtay maalmahan la isla dhex waday oo ahaa inay way jiraan meelaha qaar oo taleefano lagala hadlay laakiin waa cabsi qof aan la arkayn oo taleefon ka soo hadlaya oo dhuudhuumanaya. waxaan rabnaa shacabka inay doorkooda qaataan oo dowladnimada iyo amniga meeshaan inay sugtaan ayagaa laga rabaa. cid walba oo mas-uul ka ah goobaha ay dadku ku cayaaraan qofkii aan awoodin inuu meeshaan amnigeeda sugto ama ka baqaaya al-shabaab annagaa la wareegayno koonfurgareynayna hadduu alla idmo. laakiin hadda meelaha aan rabno inaan tagno oo hadda ay degmadan ka mid tahay waa u jeednaa caaway xilli fiida inay tahay oo saqdi dhex lagu sii dhow yahay in banooni lagu dheelayo waa wax weyn waaye. Nuur Saciid Taaliil raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.